mahadnaqa la qabaa salaadiintii hore mid waa ka cudur daaranana idinkana waan idinka cudur daarayaa oo canaan maydaan lahayn af Soomaali taagtaaganna maydaan lahayn waa idinka tacsideena ka horta marka hore mahadnaqii baan idinku deynanaa aad iyo aad baan idinku mahadnaqanaa mar haddaan oo timaadeen oo la idin soo dhaweeyay oo aynu wada joogno oo aan gurigiinii labaad joogtaan waa idinka mahad celinanaa ta kale sida idinkuba ka dhawaajiseen dareenka dadka waa ka aad aragteen ee la idinku bilaabay ee la idin sheegay ka weeye horta dareenka dadka ayaa waxaan goostay iyaga ayaa waxaan doortay ayaga ayaa waxaan iska laho mas'uuliyadooda iyaga iska la shacbigu wala siyaasi baan ka hadli karin nin dhaqan baan ka hadli karin qof qalan ka hadli karin waxa shacbiga masiirkiisi weeye ayagu ma iska leh cod baanay ku qaateen oo iyaga codkooda ku keenay oo lagu hogaaminaya ka horta waxaan doonaynaa inuu sidiisa idin galo idinkuna kuma khaldanidin haddii aad tiraahdeen aragna dadka iyaga waan kula noqonanaa waa idinka mahad celinaa kula noqda laakiin siday tahay u sheego waxba ka bedelina intaas waa codsi waxa ay raacaa anigu dareen xamar baan ahay odayaasha isku mid baan nahay macallin barra halkan joogo guurtida direen ka socday gudoomiyihii guurtida dir baan ahay anigu horta marka hore waa idin sheegaya waxa weeye xamar wixii ay ahaydna waynu isla soo aragnaa maalintii dhaweyd baan ka sheekeeyaan malaynayaa waxoogaa waa yar cadhaysan oo cadhadaydii ku noqon maayo casuumadii aan u sameeyey madax dhaqameedka ayaa layga joojiyo dib baan u dhiganayaa waxayga oo annagaa ka wada hadli doonaa waa idka tacsiidanaya taana waa idka tacsiidanaya ta kale waxa weeye xamar waynu soo wada aragnay intiinaasi markhaati baan iiga wada tihiin annagaa idiin soo gurmadno oo idiin nimid waxaad tidhahdeen noomaydaan iman nin maalintii dhaweyd ee aynu shirka wada fadhiyay baa ku dhawaaqay kuwa ha garan maaye waanu idiin nimid ummaddan aanu ka turjumanay wixii aanu idinkala kulannay waa garananaa wixii aad ku jawaabteenna waa garanaysaa ragga qaarkii nimankii hawiyo joogaan jeclaan lahaa hawiyaan wada marti qaaday anigu dhammaantood siday u dhan yihiin markii aan marti qaaday waxaan u mahad celinayaa beelaha madullood waan u mahad celinayaa iyaga iyo imaamkooda iyo ugaaskooda iyo dhaqankooda iyo siyaasadoodaba waan u mahad celinayaa markay igu soo noqdeen jawaabtii dambe waxaa ii soo celiyay beelaha madullood waa soo kala qaadanay go-aankoodiina sidaa aan idin leeyahay baanan ugu sheegay iyagana sidaa hadda aan idin leeyahay baan ugu sheegay iyagana waxaanu idinka codsananaa runtii oo